bajban mid kamid ah aflaamta Soomaalida qaar aad u xiiseeyaan film isku keenay jilayaal muddo 20 sano ah shaashada iskala soo muuqan film Soomaalida qaar ay ugu yeeraan actoorayaasha caasi waalidiinada hadda waxaan la wadaagi doonaa xaqiiqooyin u gaar filmkan balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa channel ku soo biirto muuqaalka dadka ishalaag inoo sartii share gareey wala wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal filmkan bajban sheeko aan waa sheeko family taasoo qosaysa عرور يعني أبوه ذكو عاسين عيان فيلم كان حقوق ملك ولا أهمية بوكشن إمام مالينا سلمان خان إمام جدري جلايل كل دور على سكوه كاني مركل لقينا فيلم كاني ومن كم أفلام تحلي هرئات كل حسين جلده وشديسة فيلم كان وحأصاب بحسد حدي أكتوبر سنة دي لو كنا سد حدي العجل وخرج جريه وطبعا كرر وإن كبده هم مليون دولار كأمريكا كوحقونا كاني لبعتن دبي على تنشن كرر وإن كبده لو مليون دولار كأمريكا كنتيجة أنه هذا فيلم هيد أما فيلم كول وينجاري فيلم كان مركل لقينا ومن كم أفلام تيكو كل من سلمان خان أميت بوكشن كوه اللي هو عليه markaan eegno filmkan xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay dhowr xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal xaqiiqada ugu horeyso jilaaga lagu magacaabo Munish Bal ayaa la rabo marka hore in loo dhigo booska ama farma uu ku jilay Jimal Hodra laakiin uu iska diiday sababtoo ah xillis gabadhiisa ayaa 10 jir ama 12 jir ahayd waxa uu diidanaa in asigoo aaba ah uu jiro doorka يعني عاسي والدينimada xaqiiqooyinka waxa qayb ka ah jilayaasha kala Amita Bakshan iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Matishad caanka ah ee Himaam Malina ayaa muddo 20 sano kadib ku midoobay filmkani labada jilaan filmkii ugu dambeeyay iskala soo muuqdaan waxa lagu magacaabaa Nastig xaqiiqooyinka waxa qayb ka ah saaxiibayaal Matishad lagu magacaabo Jurjelo ayaa la rabo marka hore booska muhiim ah jidda in loo dhibo laakiin xilligaas waxay ahayd qof xaamil ah oo iska diiday inay booskaasi sameeyso sheekooyinka filmka laga diiwaangeliyay waxa kamid ah waxa la leeyahay Shaaruq Khan asigana marka hore wuxuu ahaa booska Salman Khan yani Shaaruq Khan ayaa la rabo doorka Salman Khan in marka hore loo dhigo laakiin filmkan uu iska diiday xaqiiqada ugu dambeysay filmkan kala wadaagi doon xawiyaan sheeko aan filmkan waxa laga soo minguuriyay Rakesh Khanna iyo sidoo kale Atishada lagu magacaabo Shabana Azmi filmkoodii galaasiga noqday ee Avatar kaas oo soo baxay sanadii 1983 haddaba intaas aynu soo gabagabay muuqaalkayga fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like inoo saar sii share gareey wala wadaaga asxaabtaada oo aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena